بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amaanyeelo cidii dhibka Allah ka qaado, cidii dan la Allah u oofiyo, inta baahan Allah deeqo, inta bugta Allah bogsiyo, inta dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteena Allah u naxariisto, annagana Allah nooga daba naxariisto, dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadli doonaa saddex qodob. qodobka koowaad warka hadda soo dhacay Dooxa ayaa la duqeeyay iyadoo la beegsaday qiyaadadii ama kuwii xukumay raggii madaxda ka ahaa xarakada Xamaas. qodobka labaad UNT ayaa laga wareejiyay shirkeedii lagu qaban lahaa New York oo loo wareejiyay Geneva. qodobka saddexaad Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay saan hore idinku sheegnay kana soo muuqday furitaankii biyo xireenka GERD Ethiopia. weerar ay sheegatay Israa'iil idaacadeeda Israa'iil 12na ay qirtay oo ay cadaysay ayaa Israa'iil ku beegsatay shir ay ku leeyihiin xarakada Xamaas madaxdeedii oo uu ku jiro Khalid Mishcal hogaamiyaha siyaasadda meesha la yiraahdo Dooxa dawladda Qatar. saad ogtihiin Arab oo dhan waa target, mid kasto kamid ah Sacuudiga waa target, Imaaraadku waa target, cid walba waa target. Dooxa weerarka maanta lagu qaadayna wuxuu bayaan iyo cadeyn u yahay inaa wax ixtiraam loo hayn Arab iyo dawladdiis midna. halkaas waxaa ka dhacday dhimasho iyo dhaawac ilaa 10 qof inay dhimatay ayaa la cadeeyay. Qatar dawladda khaarijiyadeedu ama wasaaradda arrimaha dibadda Qatar waxay ku dhawaaqday inay tahay xadgudub lagu xadgudbay qawaaniinta caalamiga oo dhan. ma maqli jirteen laba canaanta caanihii daadshay. wararku waxay sheegayaan Israa'iil inay cadaysay in America ay ka kaalmaysay akhbaarta fadhiga iyo meesha uu ka dhacayo iyo sidii loo beegsan lahaa iyo bitaxdiid meesha ay wax ku jiraan, isla markaasna diyaarada lagu weeraray oo weerarka xataa ay diyaarada fuliyeen. saad ogtihiin waxaa ku yaala Qatar maqariga ugu weyn ee Mareykanku leeyahay, hawadooda iyo badooda iyo dhulkooda inuu difaaco buuna kaga qaataa wax alla waxay lacag haystaan wax alla waxay hanti haystaan wuxuu ku qaataa amnigiina difaacaya. hadduuba isagu soo weeraraya ka warrama oo isagu u soo tilmaamaya dadka weerarka wada waa wax la yaab leh. Carabtii waxay ila tahay maanta waa cusub baa u bariyay, indhaha u furmay. nimanka horjoogayaasha ah ee boqorada sheegta ee madaxda u ah inay cumaalo u yihiin oo dad kale u shaqeeyaan maanta ha u cadaato in aan iyaga iyo amnigooda iyo dantooda midna laga shaqeyn iyo diintooda toona ha ogaadeen. shacabka marka talaa u taal ama iska daawadeen ama rabiicul carab run ah ha la yimaadeen oo ha iska dhaqaajiyeen kuwa hortaagan si ay u xoroobaan. haddii kale ha sugeen midba maalin in la gowraco. Netanyahu maba qarsan Israa'iil al-Cudma baasha la yiraahdo ama Israa'iisha weyn khariidadeedu ka la dhex istaagay UN iyagoo wada daawanaya kulligooda daawanaya. markaas haddana u kala dhuunteen oo jawaasiis u kala yihiin oo Imaaraadku hadda waa farxaya. shalay Imaaraadku wuxuu cambaareeyay laba wiil oo Falastiiniin oo inta qoryo qaatay dagaal ku qaaday dadkii settleriska ahaa ee degay dhulkooda xooga ku haystay bay cambaareeyeen oo lacnadeen. kuwii dhaawac ahaa iyo wixii laga laayay Israa'iilna waxay dhaheen Ilaahay ha u boogadheeyo. waxay u rajeeyeen wanaag iyo khayr. Arabi waa taas halkaasay maraysaa. kalmadda intaasan ka oranayna wixii soo kordhana waa soo sheegi doonaa insha Allah. qodobka labaad Ethiopia waxaa ka furmay shir uu ka qayb galay ninkii ahaa Xasan Sheekh Maxamuud oo aan horey idinku sheegay inuu ka qayb gali doono. ay qariyeen kuwa asaga
وصعبته معنا أي ملو بالله وريجين بين وحن شيء مدحوين وصعدة أو تجية شركة عملاضة يا كهذا ماشي يا كسر مقضي يا دوجت يدان سوردا إسقوا وهو جامري أبي أحمد وحرمينا عند الحسوسية الصومالية حسن سياسة كلية معها إلا ذا كده هاي لي هذا الكي ومصبح شري ورئيسي وبحية دور بريكور لما بريكور وحا الشيء إثيوبيا إيه سومالي لان MOU جودي إن لقعد كاضي أو سوماليا أي كاعد كاتي sababtay uga adkaatay oo keliyana uu ku soo koobay Masar taageerada ay taageertay oo uu sheegay inay ka campaign garaysay ururka jaamacadda carabta oo Soomaaliya xubin ka tahay oo ay ku qancisay in Soomaaliya la garab istaago inay sidoo kale ka dagaalantay aba ay magaranaysaa lobby ka samaysay ururka islaamka wadamada islaamka oo dhowr iyo 50 dawladooda iyagana ay ku guuleysatay inay Soomaaliya garab istaagaan inay isku dayda isku ururisay African Unionki oo ay soo jeedisay Ethiopia haday ka noqon weydo Soomaaliya ay ammaan siin weydo in haba yaraatee aan la ogolaan in ururka midowga Afrika uu sii deganaan karo Addis Ababa oo marka Ethiopia bareesharka inta leegay qaadi karwada waliba qodobka ugu dambeeya ay aad uga baqday oo ah in lagala guuro mid ururka midowga Afrika oo heerko tarkiisa ama meeshiisa guud ay tahay xaruntiisa guud ay ku taalo Addis Ababa dhaqaale badan ay ku helaan sumcadna ay ku haystaan taageero badan ay kaga helaan Afrikaanka in laga noqdo ninkii inta u falay Hassan Wadarbax wuxuu uga hiiliyay kii weerarka ku ahaa waxa la oran karaa maxaa kalifaya maxay tahay sababta kalifaysa haddaan idin sheegaya imaaraadku waxay wataan Xasan kama hor imaan karo horay baan idinku sheegay Xasan iyo Deni nimankaasi ma ku celin karaan war imaaraad inta u dhaafi maayo laakiin wax imaaraad wato kama hor imaan karo xataa waxa la ii sheegay usbuuc iyo laba usbuuc ka hor inuu xaasaskiisii iyo caruurihiisii gabi ahaanba kala baxay imaaraadka waxaan rajaynayay inuu wax iska diidi karo isagoo reerkiisii ka maqan yahay meeshii dee lama oran karo lacag buu qaatay maxaa yeelay lacag masarba waa siin kartaa hadduu ku yidhaahdo war aniga arrintaas ay hortaa lacag baan rabaa ii dhiiba intaasaa la ii ogol yahay oo imaaraad ii ogol yahay iigu dara wax way siin lahayn haddii ay lacag keliya tahay ani maa idhece ninkii dhihi jiray oo yaqaanay sida loo gorgortamo waa gorgortami lahaa waa xaraash buu geli lahaa oo sharafkiisa waaba xaraashi lahaa midda lacagta badan buuna qaadan lahaa laakiin inuusan ku dhici karin wax imaaraad wato inuu ka hor yimaado waa arrin la yaab leh oo mucjiso ah oo ummad Soomaaliya haddaad tihiin madaxweynihiinnu xor kama aha imaaraad waxay u yeeriyaan buu qaadanaya Suudaan qadiyadeedaan sugaynaa Suudaan waxay dacwad geynaysaa Security Councilka dowladda Soomaaliyana waxa ay fadhidaa secretariatka ama waxay ka mid tahay Security Councilka Africa matalaysa waxay matalaysaa wadamadaas area ku yaala Suudaan ay ku taalo maxay oran doontaa waan ogaan doonaa imaaraadku ma ogolayn maalinta uu la kulmay sirdoonka taliyaha sirdoonka Suudaan madaxweyne Xasan Sheekh maalintii ku xigtay waa tii loo soo diray wasiir dawlihii Shakhbuut ala Nahyan waa tii loo soo diray oo la yiri la tirtiray wixii oo dhan la yiri madoobe iyo Deni baan ku keenayna ma loo keeni doonaa ma looga bixi doonaa awal oo dhan may u keenaan haday la socdaan yani wax la yaab la meesha ka socda marka qadiyadaasna ceeb iyo fadeexad yaa Soomaali uga soo hoytay hadalada uu ku hadlayna hadalla waa weyn baa ku jiray oo uusan khasabaysan inuu ku hadlo xaq bay u leedahay inay raadsato horumar biyaha ka dhex raadsato Ethiopia biyaheeda ay ka dhex raadsato hadda biyahaasi waa biyo 100 sano ka badan la isku dirirayay oo intaas oo jeer dagaal ka dhacay oo inta qori ar ay taagan tahay Masar isla maanta ayay waxay u gudbisay warqad dacwo ah Security Councilka isla markaasna waxay ku hanjabtay in ay wax walba miiska saaran yihiin
وأي كتيرتو دفاع يدقال إن يلقشو إثيوبيا حسن باكو نحجره وحي يقدرن وهي أنك ودولة نبضة شعلا بواحد دحادينينا مصر إثيوبيا أنا قاعد دحادينينا نبضة شعشة محيطها جدو iyo wadanka oo dhan ala xabad ka wade reerayowgii deganaa guryaha dawladda ka baxsan la nabada ogoshahay maxay tahay qabuurihi ba ka baxsan way ku jiray aakhirada dadkii aaday ba ka baxsan way nabada jeceshahay magaceed xasan waa mid la yaab leh waa tii beenta ahaydo Soomaali heshiisa caalamka heshiis la kalmada intaasan ka waranay qodobka ugu dambeeya UN Security UN General Assembly ayaa waxaa loo qorshaysnaa loo madlanaa inuu ka dhaco September New York kadib markii Mareykanku u diiday fiisooyinkii dadkii uu ka mid ama delegatekii Falastiin matalay oo xataa Maxamuud Cabbaas ka mid ah Maxamuud Cabbaas ki tanaga uu ka mid ah oo tacbaanka oo iyaga u shaqeynayay ka mid ah ba fiisooyinkii loo diiday arintaas xadgudub ku ah sharciga UN to ay ku degan tahay New York markii arintaasi dhacday waxaa laga codeeyay General Assembly-ga in fadhiga loo wareejiyo Geneva si Falastiin uga soo qayb gasho Falastiin arinteedu cirka isku shareertay 154 wadan baa u codeeyay in fadhiga la raro laba wadan baa diiday labada waa iska garanaysaan waa Mareykan iyo Israa'iil oo ma garanaysaa wax la yaab leh caalamkii oo dhan ba ka soo horjeeda waxa ku dhawaaqay in la cunaqabataynayo Israa'iil wadanka la yiraahdo Spain oo ku soo rogay cunaqabatayn kaamil ah safaaradiisina kala baxay oo xirtay toodiina cayriyay isla markaasna ku dhawaaqay in ay degdeg loogu baahan yahay in ciidan nabad ilaalin oo caalamku uu leeyahay UN tuna ay leedahay la geeyo Gaza isla markaasna ku dhawaaqay inay garab taagan yihiin Gaza iyo Falastiin inay garab taagan yihiin waxa kula jira wadamada kula jira dealkaas kula jira Spain waxa kamida Norway waxa kamida Ireland waxa kamida Faransiiska iyo Ingiriiskuna waa soo gali doonaan iyo Canada oo bishan inkastoo ay saddexdaasi khaaimiin yihiin waliba Ingiriiska iyo Kanadiyaanku ay khaaimiin yihiin oo ay hoosta uga gurayaan hubkii iyo lacagtiiba iyo dhaqaalihiiba ay hoos uga wadaan laakiin kor ay ka cunaqabateeyeen fadhigaas iyaguna saddexdooda Ingiriis iyo Faransiis iyo Canada inay ku dhawaaqaan inay ictiraafsan yihiin Falastiin iyo inay magaranaysaa u gurmadaan ayay iyaguna ku dhawaaqeen si marka arrintaasi aan loo carqaladayn oo Mareykanku uusan u hor istaagin Falastiin aysan u waayeen cid u hadasha delegatekooduna uu u yimaado waxa ay General Assembly u codeeyeen in fadhiga oo dhan loo xawilo loo raro xagga iyo Geneva waa yaabe lacagtii 600 ilaa 700 oo kun ahayd oo Xasan Sheekh Maxamuud uu kala baxay khasnada dawladda uuna kula baxay safarka America 32 qof oo aan horay u sii sheegayna lagu soo qoray oo wasiiradu ka buuxaan oo ay ku jiraan labada ra'iisul wasaare ku xigeen oo ay ku jiraan saddexda xildhibaan oo aan magacaabay saddexdaba tigidhadoodii iyo waxoodii ma ka kacba mase sii aadayaan dadkii u socday tahriibtu Ameerikadoodii maadaama fiisooyinka iyaga la siiyey ma iska sii aadayaan mise fiisooyinka la bedelayaa oo waxa loo bedeli doonaa xagga iyo Geneva tigidhadiina iyagana waa la bedeli doonaa lacag kalena looma baahan doono maadaama safarkuna safarkii hore ka gaaban yahay lacagtii qaar baa la celin doonaa time will tell waa ogaan doonaa Xasan loogama baran inuu lacag soo celiyo weligii lacag uu la baxa maahay lacag uu soo celiyo lama maqal markuu qaato oo uu la tago buu mid kale ka soo daba dalbadaa bal waase ogaan doonaa waxaan ku khatimayaa kelmad aan ka dhageystay madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo ah Puntland waxay u dhaqmaysaa sidii dawlad madax bannaan waray anaa reer Puntland dhaqankaasna iguma matashaan idinkuma waafaqsani war dadku idinkuma waafaqsana war ummadda ha lu goynina Soomaaliya waa mid war wixii kala goynaya ciday doonto ha noqotee meel baan uga soo wada jeensanayna
waranaa idinku soo hormaraya waxaasi dhaqan maaha Puntland First ciyaalo mashruuc ay samaysteen baad madaxweyne nala soo hor istaagtay ciyaalo yar yara oo aan aqoon iyo siyaasad midna lahayn oo da'ba xataa aan lahayn oo yar yar meelaha yaacaya sheeka ay alifteen baad madaxweyne nala soo hor istaagtay isku xishood oo idinkoo dhan isku xishooda oo ceebtaan idin saaran oo aad dadka ku hor wadaan ka daaya Puntland waa hooyadii federaalka ma dhimata hadda waa Puntland First waa wadan madax bannaan intaanu xasan heshiinayno si madax bannaan baan u dhaqmaynaa dastuurka iyagaa qaba war waxaa ummadda kala fariista war dhaqan xumadaan imaaraad baa iska leh ummadda kala xishooda oo kala gabada intaasaan oranayo billahi